سعاد هلو شيغو inaan xanuunsanahay jacaylku waa awoodda ugu weyn oo mararka qaar qofka noloshiisa midab cusub ugu yeeli karta balse haddii uu noqdo mid dhinac kaliya ka jira wuxuu sababi karaa dhaawac qoto dheer oo nafsi ah cabdiqaadir oo darbijiif ku ah Kismaayo ayaa tusaale nool waa halista jacaylka xad-dhaafka ah ee aan labada dhinac wada xoojin sheekadani waa sheekad tusaale nool ah waa qisa jacayl oo dhameystiran social media aad ku aragtay qaasatan barta TikTok cabdiqaadir oo la wareejinaya misna dhahaya سعاد هلو شيغو inaan xanuunsanahay قادر واسكا حنوسين أبان معاني ربتين أبان سعاد أبان معاني ما أنت أيها ناقل مقاكس معي أبو معاني waxaan dul istaagi doonaa sheekada jacayl ee ku hoostuugan cabdiqaadir iyo Sucaad maxay tahay waxa markaas sababay marunba in waxa hayo uu yahay jacayl oo kaliya suwa been intaas oo dhan waxaad ku ogaan doontaa barnaamijkan gaarka ah aan ugu talagalay haddii tahay halkaan markuu horeysa aad soo booqatay muuqaalkan lag ii saar inoo share garay wixii fikrada iyo tusaale aan sida markaas jacaylka aad u aragtin commentiga noo soo reeb Kismaayo waa magaalo qurux badan oo hirarka baddu ay ku kala hadlayaan barwaaqo balse dhanka kale waxaa ka taagan sheeko murugo leh oo ay dadku si weyn ugu dhaxal lahaayaan waxaa jira nin la yiraahdo Cabdiqaadir oo ah ninkan idin muuqda oo markii hore ahaa nin firfircoon hadda wuxuu darbijiif ku yahay magaalada isagoo dhinaca maskaxda iyo dhimirka wax ka qaba wuxuu hadii jeer ku celcelinayaa magaca Sucaad dadka magaaladu waxay garowsadeen in magacaasu yahay furaha sheekadiisa xanuunka leh Cabdiqaadir wuxuu ahaa in aad u jecel gabar lagu magacaabo Sucaad jacaylkaasi ayaa ahaa mid noloshiisa u hibeeyay balse iyadu waxay dooratay nin kale oo dhaqaale wanaagsan haysta markii uu maqlay in Sucaad ay guursatay nin kale noloshiisa ayaa gadmadow ku dhacday qof waliba oo la kulmana wuxuu ku yiraahdaa hal eray oo qalbiga taabanaya Sucaad haloo sheego inaan xanuunsanahay waxa la sheegay inuu Kismaayo u yimid isagoo leh hal ujeedo oo ah inuu guursado Sucaad balse hadda wuxuu ku dambeeyaa inuu damirka beelay iyo darbijiifnimo marka qaar waxaa la arkayaa isagoo ku calaalaya maxaa kugu seegay Sucaad ma hanti ayaa ka weyn jacaylkeena dadka magaaladu waxay ku tilmaamaan Cabdiqaadir inuu yahay mucaashaq tusaale nool u ah dadka markaas xiiseynaya wuxuu dad badan ka yaabiyay sida uu weli ugu dhagan yahay magaca Sucaad inkastoo ayada ay hore u gudubtay maxay tahay casharada aan ka baran karno sheekadan jacaylku wuxuu u baahan yahay labada dhinac inay isku dheelitirnaadaan jacaylku waaqiciga ah wuxuu ku saleysan yahay wadajir iyo isqadarin haddii hal qof uu jacaylkiisu si buuxda u hibeeyo halka midka kale uusan u arkin muhiimad la mid ah jacaylkaas wuxuu isu rogi karaa dhibaato nafsi ah sidoo kaleeto aqbalidda xaqiiqda waa furaha badbaadinta naftaada nolosha markasta ma siiso qof kasta wuxuu u jecel yahay aqbalidda in xaaladaha qaarkooda aan wax laga bedeli karin waa muhiim si looga hortago xanuunka maskaxeed iyo burburka nolosheena Cabdiqaadir wuxuu diiday inuu aqbalo xaqiiqda ah in Sucaad aysan dooneynin taas ayaana u horseeday sidoo kale waxaan ka baran karno burburka jacaylka lagama dhaxlo guurdara nolosha ah inkastoo jacaylka la jabiya uu yahay mid xanuun badan qofka waa inuu isku dayaa inuu noloshiisa dib u dhiso uu helo rajo cusub Cabdiqaadir wuxuu ku adkaystay xanuunkiisa halkii uu ka raadsan lahaa xalal kaleeto ama qof kale nolosha la wadaaga taas oo cashar muhiim ay u tahay dadka markaas taabanay muuqaalkan sidoo kaleeto waxa ugu weyn oo aan ka baran karnaa waxay tahay bulshada waxay door ka ciyaari kartaa badbaadinta dadka qof walba wuxuu mudan yahay taageero marka uu wajaho dhibaatooyin jacayl ama dhibaatooyin kale Cabdiqaadir oo darbijiif ku ah Kismaayo ayaa u baahan bulshada inay isku daydo inay fahanto xaaladiisa si ay gargaar u siiso ama dhaqaatiir caafimaad loo geeyo si dhimirkiisa u soo laabto intaasna waxay iga tahay xasuusin in midkiina kaleeto uu qabto caawinaad waayo haddii aan anaga isgarab taagnayn midkayna xanuunsan aanan garab taagnayn intaan haddii aad soo gaartay weligaa jacayl ma kugu daraysatay qof aad jeclayn marka tagtay mise adiga lagaa tegay